haddii aad maqli jirtay amaba aad aragtay baabuur nooca xabaddu aanay karina ma og tahay inuu jiro nin sheegtay inuu yahay askari aanay rasaastu karin muuqaal soconaya ku dhowaad 2 daqiiqo ayaa uu ka soo muuqday ninkani xiran dirayska iyo darajada korneyl ee militariga koonfurta Suudaan lagu yaqaano. Ninkan oo lagu magacaabo Angiyo Carbino ayaa qoryo iyo baaskoolad is agdhigay. Hadba mid ayaa uu caaradiisa afka gelinaya isagoo keebka intuu tuujiyo rasaastan afka ku qabanaya. dabadeedna waxa uu soo tufayaa rasaastii qaraxday isagoo aanay waxba yeelin wixii dhacay. Right? Yeah. That's one. mar kale ayaa uu soo qaadanaya qori kale oo AK47 ah isagoo sidii oo kale sameynaya inkastoo wax yar oo dhiiga uu tufay haddana wax muuqdo oo weyni ma gaadhin. baskoolad ayaa uu sidoo kale sameynaya inuu afka geliyo. wuxuu sheegtay inuu yahay nin aanay xabaddu karin isagoo dalbaday inuu diyaar u yahay inuu ilaaliyo oo xabadda uu isaga dhiga haddii loo baahdo madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardit. isla markaasina waxa uu u goodiyey dadka ka soo horjeeda madaxweynaha koonfurta Suudaan. telefishinka France 24 ee fadhigiisu yahay waddanka Faransiiska oo warkan baahiyey ayaa waxaa sheegashada ninkan uu hordhigay khubaro military iyo kuwa dhinaca caafimaadka ku takhasusay si markaasi ay u qiimeeyaan sheegashada ninkan ee ah inuu yahay qof aanay rasaastu karin. aynu ku horeynay khubarada militariga ayaa waxay qiimeeyeen rasaasta iyo hubka uu isticmaalay waxaana ay sheegeen inay u muuqato rasaastu inaanay ahayn tii saxda ahayd waxaana uu u isticmaalay baaruud khafiifa isla markaasina waxa uu ka bedelay gumaca dadka jirkooda waxyeela. qiimeyntaasina waxay ku saleeyeen nooca rasaasta ee uu soo tufay iyo qaraxa baaruuda oo ah mid aan xoog badnayn sida looga bartay qoriga AK47ka rasaasta loo isticmaalo. waxaana ay sheegeen xaddiga rasaasta iyo baaruudda uu isticmaalay inay tahay mid aan marka horeba laga filaynin inay dhaawac weyn geysato. sidoo kale khubarada caafimaadka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay jiraan dad dhif iyo naadir ah oo xabaddu aanay lafahooda karin balse ay tahay tiro aad u yar oo aan ku badnayn dunida. Angiyo Carbino waxa uu ka dhashay qoys militariga waddankaasi ka soo jeeda oo caana. arrintan ayaa dad